Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada mar kale saxaabi kanaalkeena Ogaal Production. Maanta muuqaalkeena waxaynu uga hadlaynaa wiil 12 jir ah oo taariikh ku reebay adduunka. Iqbaal Masiix waxa uu ku dhashay tuulo yar oo ku taal duleedka magaalada Lahore ee dalka Pakistan sanadkii 1983. Aabihii waxa uu ahaa nin faqiir ah oo xoogsata ah, qoyskiisana wuu ka tagay kadib markii uu dhalay wiil kale, taas oo macnaheedu yahay af kale oo la quudiyo. Iqbaal hooyadii inayaad oo u shaqaynaysay nadiifiye guri ayaa qaaday mas'uuliyadda daryeelka dhammaan carruurteeda, iyada oo ka qabanaysa shaqooyin aan fiicnayn guryaha Lahore. Ilmaha Iqbaal oo aan ka warhaynin xaaladaha daran ee qoyskiisa soo wajahaya, si kastaba ha ahaatee dalabkiisii carruurnimada oo aan doorasho kale ka hadlin. Iqbaal waxa uu bilaabay shaqada, waxa aanu ogaaday inuu dhowr carruur ay ka garab shaqaynayeen. Waxa uu shaqada bilaabay subaxii hore, waxa uu shaqaynayay ilaa galabnimadii. Waxa uu shaqayn jiray 14 saacadood maalintii, 6 maalmood toddobaadkii. Mushaarkuna aad buu u yaraa oo waxa uu awoodi waayay inuu lacagtii dib ugu celiyo qofkii lahaa. Laakiin si uun isaga oo aan wax rajo ah ka qabin uu sii shaqaynayay, oo xitaa markii maxkamadda sare ee Pakistan ay sharci daro ka dhigtay ku shaqaynta carruurta musuqmaasuqa ka jiray. Gees kasta siyaasadda Pakistan iyo dhaqaalaha ayaa si fiican u quudin jiray. Iqbaal waxa uu suurto gashay inuu qorsheeyo baxsashadiisii ugu horeysay kadib markii uu ku daalay qaabkii foosha xumaa ee loola dhaqmay. Carruurta waa la garaaci jiray, waxaa laga dhigay kulayl aad u daran, waxaa lagu qasbay inay ku shaqeeyaan saacadaha dheeraadka ah iyaga oo qaata mushaar aad u yar, oo ay ku adkaatay in ay helaan 2 cunto oo laba jibaaran. Geesinimada Iqbaal waxay ku dhiirigelisay inuu galo khatar uu og yahay in naftiisa ku waayi doono haddii uu ku guuldareysto. Laakiin Iqbaal waxa uu qaaday tallaabo geesinimo leh oo uu qorsheeyay baxsad. Iqbaal ayaa ka haystay qaar kale oo carruur ah, dhammaantood way carareen iyaga oo si toos ah uga degay saldhigga booliis. Kaliya waxay ku degeen sariirta musuqmaasuqa sunta ah, taas oo ka muuqatay qaabkii ugu falceliyay booliiska. Dareyskii musuqmaasuqa ahaa ayaa Iqbaal iyo carruur kale u gacan geliyay shaqaalihiisa si uu lacag uga helo abaalgud ahaan. Ciqaabta uu Iqbaal ku mutaystay baxsashadiisii waxa ay ahayd gaajo aad u daran iyo kulamo garaacis ah oo aad u xun, waxaana la hakiyay waqtigii wiilka yar ee geesiga ah iyada oo dhibaatadu u muuqatay mid aan dhammaanayn. Markuu 12 jir ahaa, Iqbaal wuxuu sameeyay isku day kale oo baxsad ah. Markan wuxuu u socday shirweynihii ururka Layliga Laydka. Iqbaal wuxuu kula xiriiray dhaqdhaqaaqe lagu magacaabo Ihsaan Ullah Khan, kaas oo ka caawiyay sii deynta Iqbaal iyo qaar kale oo carruur ah oo ka tirsan Arshaad oo ah mulkiilaha ganacsiga rooga. Iqbaal waxa uu lahaa rabitaan aad u weyn oo ah in uu wax barto, waxaana uu ku guuleystay in uu galo dugsiga Bonded Labor Preparation Fund School, waxaana uu ahaa arday aad u fiican. Macallin kasta waa la dhacay. Iqbaal wuxuu caawiyay in ka badan 3,000 oo carruur ah oo addoonsi ah si ay uga xoroobaan addoonsiga si ay u helaan nolol ka wanaagsan. Waxa uu bilaabay in uu soo shaac baxo oo uu khudbado ka jeediyay meelo badan oo dalkiisa iyo dalal kale. Waqtigiisii dugsiga waxa uu la xiriiray dad badan oo u dhaqdhaqaaqaya arrimaha bulshada da'da ku dhowaad 12. Iqbaal wuxuu bilaabay inuu qoro khudbadiisii. Waxa uu muujiyay rabitaan ah in uu noqdo qareen si uu uga takhaluso nidaamka shaqo ee addoonsiga ah. Daawadayaal, waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalka. Fadlan haddii muuqaalka ku qanciyay, like saar oo la wadaag asxaabtaada. Haddaad nagu cusubtahay, subscribe saar oo ku soo bir kanaalkeena si aanu soo badino muuqaalada noocaana.